maanta maamulka iyo waxgaradka degmada Beled Xaawo lagu wareejiyay hadiyada isugu jiray geel iyo lacag kuwaasi oo ay ku wareejiyeen waxgaradka reer Mandheera waxayna waxgaradka reer Mandheera hadiyadahaasi ku sheegeen inay u bixiyeen reer Beled Xaawo oo ugu wareejiyeen kalgacaylka iyo taageerada ay u hayaan darteed madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya محمد عبد الله فرماجو oo 8 bishaan lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Abdullahi Isaaq waa maayarkii hore magaalada Mandheera maruu arintaasi ka hadlayay waxa uu yiri ikhwaani anaga farxad baan wadnaa farxadda waxaan anagu ku qiyaasnay kitaabka Ilaahay waxa ka sokeeyo oo macnaha dadku Soomaalidu ay yaani hadiyad la isugu siiyo oo macnaha la isugu farxad geliyo waxaan u aragnay inuu yahay geela afar neef oo geela waa ka halka ka uga jeedaan afar neef oo geela iyo wixii lagu karkarin lahaa lagu dhalaalin lahaa Soomaan ayaan keenay aan hadda u gudbinaynaa reer Beled Xaawo hilibka geelaas ma gaari doono xamar hilibka geela ma gaari doono xataa garbaare halkaas lagu cune laakiin waxa gaarayso la socoto duco waxa gaarayso la socoto niyad waxa gaarayso la socoto farxad taa naga gaarsiiyay madaxweynaha naga gaarsiiyay baarlamaanka naga gaarsiiyay Soomaali meel alaale meesha ay joogan Beled Xaawo ka bilowda reer Gedo waxa la inka rabaa oo naga dhan naga la rabaa inaan noqotiin ambassadorial Soomaali yaani waa hogaamin jirteen wadankan adinka waxay ka dambeeyay wadankan waa degi waay kuwa haddana Soomaalidu ku dagta Allah in ka dhigo hadiyadahaasi oo isugu jiray 4 neef oo geel ah ya 100,000 oo shilinka Kenya una dhiganta $1,000 ayaa maanta kulankii lagu kala wareegayay waxa uu ka dhacay xuduudda kala qaybiso labada degmo Mandheera iyo Beled Xaawo waxaana hadiyadaasi waxgaradkii iyo salaadiintii reer Mandheera ka gudoomiyaha degmada Beled Xaawo Maxamuud Xayd Cismaan aad iyo aad baa waxa ugu mahadsantihiin si sharaf iyo cizi iyo karaamo leh oo ehelnimo leh walaaltinimo leh ducada noo ducayseen iyo geel iyo lacagtaas u kana darteen aad baa ugu mahadsantihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waan ku salaaminaa insha Allah biidnillah kariim walaalayaal waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer baan idin mahad celinaynaa waa isku leenahay diiraan iyo walaali ehel baan u nahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanka markii uu soo dhamaaday waxaan mikrofoonka muqbaahiyaha STN la dhax qaaday waxgaradkii iyo salaadiintii labada dhinac waxaana wax ka weydiiyay shucuurtooda ku aadan kulankooda maanta waxaan rabaa farmaajo waa madaxweyne Ilaahay noo soo keen dadku waa 3 jinni boqor alla boqor la soo boqor dad 3 dalad u kala baxa salaatullaahi alayhi wasallam nabigeena kale waa alla boqor jinni boqor waa kuwa giliska lagu dhaxaayo oo dad kala asdoolana oo wadanka asiga Allah loo doolana la soo boqor waa dad weynihii askar dhashay oo wadanka joogay ninkay doorteen farmaajo waa ninkii dadweynaha wadanka joogay ay doorteen annagoo idil Soomaaliya idil hambalyoon leh sida loogu hambalyaynayo loogu farxay mid u qalma Ilaahay ha nooga dhigo annaga waa nalala kaftamay waxa la yiri reer Beled Xaawo gadaashiin madaxweynihii hore oo gobolkan u dhashay ka bacdi lama arkin farxadan Ilaahay waxaan ka baryaynaa mid ka fiican inuu noqdo oo dadka iyo diinta iyo dadkaba u gargaaro Soomaaliya mideeyo hadiyadii qaaliga ahayd oo qiimaha badneed oo dhaqanka Soomaalida ku qaaliga ahaydna way idinka gudoonay waana idin mahad celinaynaa adinka iyo madaxweynahiinaba mid kora iyo mid hoosaba saaka Ilaahay isu keenay haddii Ilaahay isu keenayna farxad baan ku kulannay saaka yaani farxadda qaarkeed ma ogtahay haday ka badato waad la ooyeysaa annaga reer Mandheera ahaan sidaasaan ugu faraxsanahay adinkan sidaas ogaanaysaan waxa kaloon idin sheegi lahayn qayli iyo alalaas iyo mudaaharaad iyo waa laga fiican yahay ninka makaalmeynayna diinta Ilaahay aan u akhrino diinta aan akhrino meel aan joogno quraan aan akhrino in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala garbkiisa galo Ilaahay ugu kaalmeeyo mas'uuliyadan xoog leh Soomaalina maaxdeeda xole Ilaahay inuu soo celiyo yaan diin aan inuu akhrino ayaa la rabaa Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Al-Faqri wararka STN magaalada Mandheera